Maanta waxaa dhacday ceeb weyn oo reer UK u soo hoyatay kadib markii Mona Xafiis ay aflagaadeeyday abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed Maki Xaaji Banaadir. hadday saas tahay makiyow waxaan ku arkaa abwaan matiidi qabiilista Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Magacaygu waa Cabdirasaaq Xaashi. Ugu horeyn waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. YouTube-ka subscribe dheh oo sii share garee, like saar, comment-gana ka bixi, lana wadaag inta calanka buluugga ka dhexeeya ee Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaad sii daawataan muuqaalka dhamaystir si degan. Waxaan aad iyo aad uga xumaaday in abwaan Maki Xaaji Banaadir oo marti ku ah dalka Ingiriiska la gaarsiiyo ceeb iyo fadeexad iyo weli wuxuusan u qalmin oo dhiiqo lagu haloogeliyo. Yes. Maki Xaaji Banaadir waa abwaan weyn oo Soomaaliyeed waxaana aad iyo aad u aflagaadeysay oo ku tilmaamtay dad soo kala dhaweystay yahay. Bal marka hore ila daawo muuqaalkan. hadday saas tahay makiyow waxaan ku arkaa abwaan matiidi qabiilista number 1 ata gabdhaas wax lagu samaynayo oo iyaga meesha ka soo tagay mise adaa soo ceerisa makiyow soo hadal de adi ma soo ceerisa mise iyaga ka soo tagay soo hadal makino haddaad soo hadli weysa anaa hadlay laakiin anaa hadlay aniga baab makiyow inaad tiraahdo aniga sharaftaydan dhoorsaha dadaa sharafta laga dilaa. Maki Xaaji Banaadir waxaa lagu tilmaamaa qof qabyaaladista ah, qof dadka soo kala dhaweysta. Macquul ma ahan. Maki Xaaji Banaadir waa nin abwaan xidig qaran, waa astaanta Soomaaliya ayuu ka mid yahay, waa abwaaninta maanta abwaanka nool oo noo haro ayuu ka mid yahay. Ilaahay cimri dheer ha siiyo cibaado suban. Maki Xaaji Banaadir waa abwaan Soomaaliyeed oo qiimo weyn ugu fadhiya dhammaan beesha Soomaali oo dhan. Yacni si gaar ah qof ma u xijinayo, laakiin Mona dhiiqo waxay u soo gaftay oo soo aflagaadeysay abwaan Maki Xaaji Banaadir. Taas ma u qalmaa? Haddii u qalmin comment-ga nagula wadaag ra'yigaaga waa muhiim. Maki Xaaji Banaadir waxaa ognahay inuu yahay abwaan majaajiliiste, comedian Soomaali, nin yacni u soo joogay dhacdooyinkii nabadeed iyo dhacdooyinkii burbur ee Soomaaliya. Waxaan ognahay in uu intuu ka yaabay dhaqaale xumada waddanka ka jirta uu noo soo qaaday heestii 1,000 shilin iyo bulshada ku shumuntay. Waxaan ognahay inuu yahay nin aan dalkiisa ka bixin 30 sano oo ugu dambeeyay burburkii Soomaaliya, asagoo awoodi kara inuu ugu yaraan ku noolaado dal labaad, Kenya, Ethiopia, ama uu ku noolaado Dubai, Ingiriiska, London, meeshuu rabo, Sweden, uu meelo badan aadi karay, laakiin uu ka doorbiday inuu la joogo ummadiisa burburka iyo dhibaatada iyo dhibkana la qaybsado. Maki Xaaji Banaadir waa abwaanka kaliya ee ku haray magaalada Muqdisho, inkasta oo nin badan ku hareen, laakiin inta nool maantay waa abwaanka aan marnaba ka bixin Soomaaliya oo inuu tago meel soo laabto bil ama maalmo uu maqnaado waa laga yaabaa, laakiin maalin kamuuna guurin magaalada Muqdisho. Mona Xafiis oo ka soo qaxday Soomaaliya xilli hore, Yurubna ku dhigtay inay maanta aflagaadeyso oo ay hayso. Maki Xaaji Banaadir waa ceeb iyo fadeexad ku dhacday reer UK. Waxaan leeyahay reer UK waa fadeexaysan tihiin, waa ceebeysan tihiin. Abwaankii martidiinii ahaana dharka ayaa ka sii warabtaan. Markaan saas leeyahay ma ahan inaad la kulansiisaan qof aanan u qalmin abwaan Maki Xaaji Banaadir. Marnaba uma qalanto abwaanka horgeysaan ama aad xal uga raadisaan. Maanta maxay leedahay? Waatan ila dhageyso. adaa soo ceerisa makiyow soo hadal de adi ma soo ceerisa mise iyaga ka soo tagay soo hadal makino haddaad soo hadli weysa anaa hadlay laakiin anaa hadlay aniga
baab makiyo inaad tiraahid aniga sharaftaydan dhoorsaha dadaa sharafta laga dila kaama yeelay taas wallahi inaana kaa yeelayn waxaan kaa rabnaa inaad soo hadashid ma annaga meesha ma annagaa diidnay adoona baryaayo ma annagaa diidnay mise meesha waana laga soo ceyriyey baab maki soo hadal adaa labadan dad isku ballamisay marka horena waa lagu sheegay maxaa isugu ballamisay in la isku baabaa waa ka xumahay abwaan maki xaaji banaadir sidaan ma u qalmaa reer London su-aashii waxay taalaa dadka degan London ee Soomaaliyeed in maantay magaciinii iyo sharaftiinii iyo karaamadiinii aad ku lumisaan in hortiina lagu caayo laguna aflagaadiyo abwaan qaran oo Soomaaliyeed astaan qaran oo calanka Soomaaliya la mid ah maki xaaji banaadir ma ahan qof caadi ah ma ahan shakhsi iska normaal ah waa shakhsi qiimo weyn u fadhiya dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed maki xaaji banaadir waa abwaan weyn oo Soomaaliyeed oo geyga Soomaalida dhammaan laga jecel yahay maantayna in lagu aflagaadiyo hortiina adinka ayaa sabab u ah in hortiina lagu caayo abwaanka reer UK ayaa sabab u ah gaar ahaan qaybta fanka Soomaalida waxaan leeyahay waxaad ku jirtaan ceeb iyo lama arkaan iyo foolxumo tii ugu weyneed ayaa maanta lugaha kula jirtaan markaan has leeyahay cadeynimo dhina hortiinaan soo dhigay baraha bulshada yaalaan iska soo dhaqa abwaankoo nin marti ah muddo yar 3 asbuuc aan dhammayn inaad soo aflagaadiysaan waa wax aad iyo aad u foolxun qaybta fanka suugaanta Soomaalida oo dhan waa in arrintaa ka soo jawaabaan reer UK dhammaan si u dhan yihiin oday gabar walaal dhalinyaro dhammaantiin waxaa leenahay ka soo jawaaba aflagaadadii u geysatay islaantan qurbaha ku wareertay ee stress-ka qaaday waxaan leenahay abwaan sorry waa ka xunnahay in waxaad u qalmin lagugu sameeyo erey aad u qalmin lagu dhaho waxaadan ahayn lagaa sheego waxaan ognahay inaad tahay astaan qaran oo la mid ah calanka buluugan ee Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay sorry abwaan maki xaaji banaadiri wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu